عبد الله بن عمر باوحو أركنين هو يديس قربها كسيدة وكعبد الله طوافه يلو وريقي مركز سيدنا عبد الله بن عمر مو أركيسا إن هذا هو يحقق يقول هيدنا إسكجودي مو أركيسا ما دام إحسان كهير كجاري عن قربها كسيدة طوافنا مركز سيدنا ولا بطلقة واحدة من طلقاتها إسكده إن هذا وحو يحقق يدي جدده فوشي قبطي حنون كيدي متكم إذا بعد كذي مركي فوله ليس حنون كي هي دال كليل كي حنون نذي قبنا هي متكم إذا ما أذن كذي ولكن أحسنت بان كل هي وهذا إحسان سميسي والله يثيب على القليل كثيرا وحيروا على التماديد وإحسانه أي إلهي وحبذا كوو أمال مرنين أي إلهي كوو أمال مرنين هدي الدنيا ذا كتجا وأيد إنسان حقه دي من نجاهري ماذا للأنصاري أي النبي قوي من صلى الله عليه وآله وسلم مركز سووحه يري باري إنما دي والد كي هدي دنتين وحري بيا تراه أو أن أصبعين هاي مركز النبي يري نعم خصال أربع أفر أرمات أيها هاي الصلاة عليهما والاستغفار لهما وامد إن أدعي ست استغفارنا إلهي أويدي ست حقا وكوكو ما يوكوكو تاغيا مقوين وإنفاذ عهدهما ومدك الله بعض وحي بلن كودي أها إنا أوفيسد وحي والدكو أي كالب بلمان وبلن كودي أها إنا أوفيسد شرطنا وحا بلن كاسينو يهي بلن وافقصا شرعي إلهي هدو كالب الله يقرب هذا الجو من اللي أوفيني هدو كالب الله يمركان دينتاش واحد بدعة وأنصحها هاي إيسو الصبي وحرام من اللي أوفينه بلن كي أي كتجان وين اللي أوفيه وحو كتجان إحسان قرابة إلا الصبيه قرابة إلا حريريه وحا أولاق إلا الصبيه وإن أوفيسا حقه قد موي أي كقول لي أرنك صدق هذه وحويه وإكرام صديقه معه صاحبك أي لهايين إنها كراميسيد أو قدريسيد والدك صاحبه لها ونكلا تشعلا صاحبها سيدة أكلا تشعلا يسيدوا صاحبها أولها وإذا حريريسا هذا كحول الرون تايكو حريري هذا يبوقشة تايكو حريري هذا مساعدة كذي كالمكلا تايكو حريري وإذا حريريسا مثل أفراد وحوية وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما قرابة والدك حق إسكاغة تمت وماشا أي إسكاغة يمادين بأي تاي هوي آباء ملك لو إسكاغة يمادين آن لأرق ضد كاس قرابة والدك حق إسكاغة حريرنا وإن حريرسا أي يوجد هبريره هذا ريال أبتيال ضد كا والدك قرابة لأها ووضدها كيمت oo ayagu ay xariirinahayeen waa inaad xariirisaa oo qaraabadaas xariirisaa xadiidka nabiga u fiirso Abdullah ibn Umar saxaabiga la yiraahdo asagoo maka u socda oo la socda Abdullah ibn Dinar ayuu wuxuu arkay nin reer baadiye ah markaas uu soo dhaweeyay oo salaamay oo karaameeyay oo soo qaaday dameerkii u saarnaa wax ka saaray markuu saaray buu cimaamadii u xirneed oo quruxda badneed oo watay buu u furo u xir kireer baadiyaha dameerkiina waa saaray Abdullah ibn Dinar wuxuu la yaabay sida uu ninka reer baadiyaha ah Abdullah ibn Umar saxaabigaasi u maamusay buu la yaabay markaas wuxuu ku yiri Abdullah ibn Umar dadkaani waa reer baadiye wax yar ba iskaga filan juhdigan aad gelisay maba u baahnaba wax yar ba ku filan markaasuu wuxuu ninkan aabihiis wuxuu saaxiib la ahaa aabahay Umar nabigana waxa ka maqlay isagoo oranaya inna min abarril birri baarinimo waxa ugu baarinimo badan silatu ar-rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya qofku inuu xariiriyo aabe waalidku dadkii uu jeclaa dadkooda
waalidku dadkii uu jeclaa dadkooda inuu xariiriyo waa midda baarinimo ugu baarinimo badan markuu dhintay ka bacdi waxaan u xariirinayaa ninkan aabbihiis iyo aabbahay baa saaxiibba ahaa waxaan markiiba ka ursanayaa marka ka arkayaa aabbahay baarinimo aan u samaynaya darteed ayaa ninkan u karaameynaya u xariirinaya bal u fiirso waa maal iyo tusaale cajiib ah oo xadiidkaas nebiga sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi bni cumar uu noogu sameeyey waalidka waxaa jira wax aan moognahay oo aanan ku xariirin oo aan nooguba jirinbaba biriga aan noogu jirin aabbaha xoolaha waa la siin hooyada waa la siin hadalkooda waa la maqlin waa lala sheekaysan waxay rabaan baa loo yeelin laakiin la isma weydiiyo qofkan waxaa ka khaldan aakhiradiisa in la saxo aabbihii ma tukado dan lagaba leh waa la xariirin loo sheegi maayo hooyadii waxaasaa ka khaldan bal ictiqaad faasidaha laga yaabaa inuu aaminsan yahay oo ictiqaadsan yahay ama acmaal bidca ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga dheeraanahay inuu ku dhex jiro la isma weydiiyo camalkan uu samaynayo waalidka ha loo saxo oo hadduu saatan ku taga naar buu ku gelayaa dhinacaa la isma weydiiyo inta badan waxaan u la isweydiiyaa hooyo dhaqaaleeya aabbo dhaqaaleeya waxaa ha loo diro unbay u badataa sidaas ma ahayn baarinimadu sidaas ma aha asal waxaa ah inaad ku didaashid waalidku inuu khayr ku dhinto inuu ku dhinto isagoo ilaahay adeecsan oo shirki ka badbaaday asagoo bidca ka badbaaday oo ku sugan sunnada nebiga asagoo ka badbaaday macsi iyo dembi oo daacada ilaahay ku sugan waa inaad kula jihaadaan arrinkaa isaga ah oo kula didaashaa oo kula didaashaa bal fiiri abu hurayra radia allahu canhu saxaabigaas hooyadiis buu tawxiidka gaarsiiyey kaafirad mushrikada bayna ahayd hadduu dhowr jeer u sheegay rasuulka inay rumayso ayay maalintii dambe af buuxa nebigana ku caysay isagana ku caysay nebigay caysay abu hurayra oo booya ayaa nebiga u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow hooyaday maanta waxay tidhi wax aan ka naxay bay adiga kaa tidhi taasaan la booyahay i ducee nebigu sala allahu calayhi wasalam waa u duceeya allaahumma hdi umma abi hurayra ilaahow abu hurayre hooyadiisa hanuuni baa nebigu asagoo bishaaraysanayoo faraxsan oo aaminsan ducadii nebiga in loo aqbalay ayuu faraha iska bixiyey oo hooyadiis aaday markuu iriddii gargaraacay iriddoo xihan buu tegey markuu iriddii gargaraacay ayuu wuxuu ka dhex maqlay qof qubaysanaya biyo daadanaya waxaas ka dhex maqlay markaasuu codkeedii maqlay iyadoo odhanaysa meeshaada igu sug meeshaada igu sug way qubaysatay maryay soo gashatay way is soo diyaarisay albaabkii markay ka furtay waxay tidhi abu hurayra waxaan kuu sheegayaa oo kuu caddaynayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah isagoo faraxsan oo faraxii intuu ka batay booyahayuu nebiga u yimid markaasaa nebigu yidhi maxaa la booyeysaa waxaan la booyayaa farax hooyo waa muslimtu waxaad noogu ducaysaa buu yidhi aniga iyo hooyaba ilaahay dadka inuu na jeclaysiiyo dadkana annagu aan jeclaano muslimiinta nebigu waa ugu duceeyey wuxuu dhihi jiray abu hurayra qof muslim ah oo i arkay ma jiro ama i maqlay ilaa waa igu farxaa qof muslima oo i maqlay ama i arkay ma jiro illa waa igu farxaa ducadii nebiga ilahay u aqbal wuxuu kula didaalay gaalnimo inuu ka soo celiyo oo waddada ay hesho ilaahayna waa u aqbalay subxaana wa tacaala adigana waxaa laga yaabaa iyadoo muslimad ah aabbihii oo muslima hooyo oo muslimad ah intaas oo shayna ay ka khaldan tahay marnaba inaadan juhdi ku bixin ma weydiiso hooyada faatixada ay akhriso oo ku tukato hooyo bal akhri ma tiraan kaa saxe dugsi qur-aan bay ku geysay way kugu jihaaday qur-aankaa lagu baray ayagu maysa dhigan waana tukadaan hadday kuu didaaleen oo qur-aanka adiga ku bareen ma weydiisay hooyiyo aabbe faatixada ay ku tukanayaan inay ka saxan tahay in kale ataxiyaadka ma fiiris waxa weeyaan waxa loogu roonaanayaa baaraka allaahu fiikum keliya ma ahan xoogaa shilimaad ah oo jeebka laga siriya ma aha
arinku intaa waa ka weyn waa in waalidka loo naxariistaa oo juhdi la geliyaa in loo saxo waxa ilaahay ku caabudayaan subxaanahu wa tacaala oo cibaadadooda loo saxaa baarinimada midda ugu weyn weeye taas nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rida rabbi fii rida alwaalid raalli ahaanshaha alle wuxuu ku sugan yahay waalidka raalli ahaanshihiisa wasakhatu rabbi fii sakhati alwaalid carada ilaahayna waxay dhex taallaa carada waalidka haddii waalidku kuu caroodaan caro allah ku haysata hadday raalli kaa yihiin ilaahay ridihiisa helaysaa subxaana wa tacaala khayrkaas weyninka badan oo waalidka ah waa inaan ku dadaalna